بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله walaalyaal, waxaan u jeednaa maanta dadka oranaya nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii iyo hooyadii naartay ku jiraan. dadkaasaan maanta u jawaabanaa. xadiiska marka la sheegayo ama xadiiska marka la dhiganayo ama xadiiska marka dadka la barayo, dadka waa inaa wax kasta loo caddeeyo. haddii xadiiska dusha un laga qaato oo ummadda lagu jaahwareeriyo oo ummadda lagu fidneeyo, dee fidnad lagama baxayo. waxay ku leeyihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aabihii iyo hooyadii naartay ku jiraan, sida iyagu indhowga ku arkeen oo kale. markaasay kolba xadiis halkaa ka keenayaan, xadiisna halkan ka keenayaan, iyagoonan xadiiskii zaani u saxin oonan zaani u fahmin. waa fidnad. fidnaddaasi iyay gaaladuna u jeeddaa. gaaladan diinta islaamka la xarbinaya, kiristankan islaamka nacab, wuxuu u jeedaa, uu doonayaaba waa fursadaha weeye. xadiiska waa la sheegaa, lakin ummadda waa loo macnayaa. haddii xadiiska dusha laga qaato oo ummadda lagu dhirbaaxo, ummaddu fidnad bay ku dhacsa. horta ila dhegeysta Somali Christian TV waxay ku haldayaan. maanta su-aasha la weydiinayo oo ama video ku saabsan waxaan rabnaa inaan idiin sheegno waxaa weeyaan su-aasha waxay tahay nabi maxamed aabihiis iyo hooyadiis ma naartay ku jiraan mise jannada? hal shay raba maadaamkii aadeen jannadii aadeen idinka noogu warrama. shani marka waxay yidhahdaan idinka aabihiin hooyadii maxay ahaayeen? marka adiga waxay weydiinayaan nabi maxamed hooyadii aabihi maxay ahaayeen? waa su-aal macnaheeda ay tahay qofna ma raaci karo aabihi hooyadii, qofna weli waa isaga isbadbaadiyo. marka waxaan aqrinayaa xadiis caddaynaayo in maaragtay naarta ay ku jiraan. nabiga aabihiis iyo hooyadiis ay ku jiraan waxaa caddaynaya xadiiska. waxaan aqrinayaa saxiix muslim 2-3 buuga koowaad nambarkiisa 408. anas waxaa laga soo wariyey inuu yidhi, runtii qof baa yidhi rasuulkii allow aabee aaway. wuxuu ku yidhi wuxuu ku sugan yahay naarta. markuu sii jeestay isagoo caraysan ayuu ama naxsaba ayuu u yeeray nabigii oo ku yidhi aabbaha iyo aabahana waxay ku jiraan oo ku sugan yihiin naarta. walaal kusoo dhawo tv-ga markaasina Somali Christian TV live ayaan ku jirnaa. magacaada noo sheeg. waxaan ka hadlaynaa, waan ku sheegayaa haddaan ka qayb qaadan waxaan ka hadlaynaa nabi maxamed aabihiis iyo hooyadiis ma naaray ku jiraan mise jannay ku jiraan? ku soco. waa ka Somali Christian TV. haddaba waxaa la yaab leh, kuwan waa bacdowba, kuwan waa bacdow, waa gaalo, waa shayaadiin. kuwan hanu jawaabnay bal horta eega. waxyaaba waxaa jira walaalayaal kaa yaabinayaa jira. gaalnimay ku dhinteen labadooda. nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadiisa iyo aabihiisa waa gaalo, waa ahlu naar. gaalnimay ku dhinteen. waa hadal aan shaki lahayn. hal mar dhageyso wiilkan jawaabtiisa. wiilkan jawaabtiisa haddii aad ku qanacsanin xitaa waxaad dhageysan kartaa jawaabtuu bixinayo sheekh Umar. sheekh Umar jawaabtiisa haddii aad ku qanacsan tahay hal mar dhageyso. nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadiisa iyo aabihiisa waa gaalo, waa ahlu naar. hadalkaasuu dhihi doonaa hal mar dhageyso. muuqaalku noo sheegay saaxiib Facebook page-kan Falow Sale. kusoo dhawow su-aasha iyo jawaabteeda. nabiga hooyadii iyo aabihii ma ahlu janna mise waa ahlu naar? su-aashani aad ayay ku anfacaysaa. caawa waa jimcaad marka koowaad waxaan ku sali nabiga sallallahu alayhi wasallam. muuqaalkana dad badan buu anfacayaa oo diinta la dagaalama oo dhaha siday ku dhacday nabiga hooyadii iyo aabihii in naarta la geliyo. oo isaga hadduu nabi yahay maxaa faa'iido kaga jirta diinta difaaciyo hooyadii iyo aabihiiba gaalnimay ku dhinteen naar baa la geliyay. isaga maxaa diinta faa'iido u tahay haddii waalidkiiba la janayn waaye? dad badan oo diinta la dagaalamaya ayaa sidaa dhaha, balse laakiin waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad meel dheer gaarsiisid. nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii iyo aabihiiba waxa ay ku jiraan naarta, oo naarta ayaa rabbi subxaana watacaala geliyay. sababtana ku sheegaya في صحيح مسلم وحكوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجي وكيري أباها يحكوا جها وحكوا يرى أباها ناطا نيكي مركب وسيجي يستوي تيجي ربي أيا النبي وحكوا يرى أبي وأباك في النار أباها يدي أباها ناطا يحكوا جها تاسوا كوكو عضي النبي إلهي عضينا يشيري أبيه يهودين ناطا يحكوا جها الله النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا شيري إن أبيه يهودين ما كان بيسوي سفر كجرا مكان مدينة بحيسان yiri uu rabay inuu aabihii hooyadii dabuurtooda soo booqdo oo uu duceeyo ilaahay dambi dhaaf weydiiyo. nabiga markaa ilaahay wuxuu ogolaaday inuu soo booqdo qabriga hooyadii uu soo arko, laakiin looma ogolaan inuu duceeyo, laanna maxaa yeelay gaalnimo ayay ku dhinteen. imaam nawawi raximahullahu tacaala waxa uu yiri waxay ku tusaysaa dadka ahlul fakrada ahi oo laba nabi u dhexeeya haddii ay soo gaareen diin oo aanay rumayn oo ay isaa ku dhintaan, gaal ayay isaas ku dhimanayaan oo naarta la dhimanaya. nabiga aabihii iyo hooyadii way soo gaareen diintii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ayay soo gaareen, mayna raacin oo mayna rumayn. sidaa awgeed waxa ay caabudeen asnaamtii iyo sanaamadii maka yaallay oo quraysh dhaqankooda ayay raaceen. sidaa awgeed waxay ku mutaysteen in ay naarta galaan. ibnu taymiya ayaa la weydiiyey imaam suyuudi qowl uu dhaho gadaal baa laga soo nooleeyey nabiga hooyadii iyo aabihii kadibna way rumeeyeen oo way dhinteen. ibnu taymiya wuxuu qowlkaasi waa qowl daciifa oo aan saxiix ahayn. nabiga iyo hooyadii iyo aabihii in dib loo soo nooleeyey ay rumeeyeen, marka waxba kama jiraan. muuqaalka meel laga gaarsiiy adiga ayaan ku faa'iideynaya. saxiix muslimka waxaa ku yaala in nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi asagoo socota oo maka iyo madiina dhexdooda jidka haya qabriga hooyadii meeshaasuu ku yaala. jidkii waa hayay saxaabadu la socday waa leexday nabigu sallallahu alayhi wasallam qabrigii buu ku leexday. qabrigii markuu ku leexday oo dul tegay nabigu waa ooyey sallallahu alayhi wasallam. hooyadii qabrigeeda waa ooyey nabigu sallallahu alayhi wasallam. markuu ooyey kadibna saxaabadii la socotayna waa ka ooyey, way la ooyeen. markaa ka nabigu ooyey sallallahu alayhi wasallam. markaasaa
صلى الله عليه وسلم وحوي ربي ما وحا ويديستين قبرك هو يدي سيارتون بوقضه وأي أقول عليه وحا ويديستين رد عليه إنه لا يدن بدافر وإيدي ذي قال وحا قصوتك تعالى القرآن كرب ليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نبي يضد المؤمنين منا ومضنا إن أي ضد قال وقال لما كنت انتي إن إلهي تبقى هو يديا وإله هد من أخبار نبي ومضنا أنا إحكي لتوكي سيسكبتا فكي لو دي النبي هو يدي وإلهي تدود من أخبار مركز النبي هو يدي صلوات ربي وسلام عليه نحن يعني أشوف هو يدي وطن خليه صلوات ربي وسلام مركز النبي هو يدي ما يعني لأنه حاجة وحيانا مسعيب حاجة ثانية يحكي لي بس سيحمى كشو روح المرضو قال لما كنت يا إله من النبي الله النبي هو أبوه هذا النبي هو يدي من نغض مرضو قال لما كنت خلاص نبي كثير معه صلوات الله وسلام عليه نبي إبراهيم خليل الرحمن أنبياء النبي محمد أبو فضل نبي إبراهيم أبوه نبي إبراهيم هذه آزر يا سقران كمش قال لما كنت waad maqasheen walaalayaal iyaalkan jaahilka waxay ku aldayaan waad maqasheen daliil waxay ka dhiganayaan iyagu ilan iyagu cilmi ma dhiganine daliil waxay ka dhiganayaan hadalka sheekh umman madaxuu ii saaran yahay waa run laakiin xaqa ilaahay iyaan ka jeclay anugu sheekh umman xaquna sidaas maaha xaqu sidaa maaha marka ninka ku dhahaya nabiga hooyadii iyo aabihii naar bay ku jiraan waxaad weydiisaa adigu hooyadaa iyo aabbaha ma jannay ku jiraan hataa weydii نبي محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله هو يدي وأبيها دي للناري هو يدا يو أباها مي بدباريا مركا النبي كدن عليه الصلاة والسلام لغو صادري أو حبيب كاغا أدي باتيرست أو دورنس دي ولي بشرقرية هذا بدن بو هذا كان حطرية أيوة حطرية هذا كان اللي شرقرية أيوة حطرية هدونا أمة إسلام كدباتين والنبي عليه الصلاة والسلام ونندباتين أيوة حطرية شرقرية بكلية كان يري جاهلك مركا هو يدا يو أباها يا نارتا كجري تا أدو شرقرية وفيسبوك كصباح haddaba xaqu sidaas baa mas'aladan bari hore waxaan xasuusanayaa 2004 waxaa nala soo galay mas'aladan dad salafiyiin la yiraahdo dad waxaa jira isku bixiya salafiyiin oo sufliyiina jira wallahi baan ku dhaartay 2004 bay ahayd mas'aladan inay nala soo galeen riwaayada nabi maxamed hooyadii iyo aabihii gaalnimay ku dhinteenoo naarta jahannamay ku sugan yihiin waanan xasuusanayaa maalintaas inaanan ka jawaabi su'aasha waxaa lagu keenay laba xadiis waliba waa laba xadiiso macnihiisa la fahmeen hadday xitaa macnihii dhuuxaan ay baaraan ay fahmaan xaqa way garan lahay laakiin aaway dadkii wax baarayey aaway dadkii wax fahmayey aaway dadkii wax fahamsiinayey mas'aladan waa mas'alada ay culammadu isku khilaafeen khilaaf weyn baa dhex maray culammadii marka khilaafkii culamada lagama hadlayo oo lama caddeynayo oo lama bandhigayo oo ummaddii looma sheegaye nebi maxamed iyaa la dhibaateynaya la odhanaya hooyadii aabihii dabkay ku jiraan siday iyagu hooyayaashood iyo aabayaashoodba siday iyagu badbaadeen oo kale marka anigu culamadan waxaan xasuusinayaa hadalkii laga rawiyey ibnu mascuud fii saxiixi muslim ابن مسعود وحو رنجري وددكو waxay aqligoogu qaadayo dadka uga warama oo u sheega waxay dadku aqligoogu qaadi karin ama ay diidayaan ummadda ha u sheegina iyo rajulay ibn mas'ud inta mi garan waayeen culimada ummadda maxaa loo fidneynaya war dadku waxay qaadi karaan dadka u sheega nabi maxamed hooyadii aabihii naarta kuma jiraani hooyayaashin iyo aabiyaashin baa naarta ku jira ee taa ooya inagu haddaba xadiis kaliya un hay keenaan caddeynaya nabi maxamed hooyadii inay shirki ku jirtay shirki galaysay ee sanabada caabudaysay xadiis kaliya un hay keenaan أما حديث كليا أن هاي كينان عدينا يا نبي محمد أبيه إنه سنة تعبد شيء والله على قبض إلهي على قبض حديث وهدو قرآن كخلافه يو حديث كما لا قادنا يا مثل ما قادنا هرت دت كان ويدية لما قاتوا حديث كصحيحة لغو شيء يو حديث كلا الصعدة نص القرآن حديث وهدو قرآن كخلافه يو حديث كارين على لوديكا علماء حتى كم هذا أي هذا إنك هدو قف كويراه حديث باجر له بعد العشاء افعل ما تشاء صلاة العشاء كذب واحد دون تسمع هذا اللي قاعد تقول حديث اللي هدوجرو وحديث كان صحيح ياهي ما لا قادنا يا مثلا لما قادنا لانه اياتها قران كبينينا يا حديث مركا حديث كاسي حديث صحيح ما نقول كرو وايو حديث كان النبي عليه الصلاه والسلام لقى رويه صحيح السند iyo matnigiisu صحيح yahay quraan kula shaqeeya abadan ma khilaaf quraan hadaba kaba inaan badin aayadan ay daliil ka dhiganayaan ee suurati tooba aayada 113 horta hanu fiirsano walaalo xadiiska hanoo dambeeye bal horta aayadahan han isku dabirno oo han fahamno dhageysta آيات واحد ليه هاي سورة التوبة آيات بقول يصدق يتبع ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم مركا يوعد ذاتي كذب إن يهين أصحاب الجحيم هذا بقى فرسو كلمة تبين لهم أي هذا نبيغا يوحي نبيغا رمييبا مؤمنين تاها وما بنانو وما سوغنان إني قدام بدافان دتك مشركين تا مرحد دي يوعد ذاتي إني غاني ماذا يشركي كل انتين يهين أصحاب الجحيم أي يوعد ذاتي بير
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آية كحلت محل هذا آية بقول أفر يطبع وعلى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. نبي إبراهيم مركو عد هذا به إنه يهي عدو إلهي تبرأ منه بريء بكن نقول فروه كقال وعد هذا إيه هذا آية كحلت آية صدحات بقول يشان يطبع محل هذا ليسوا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إلهي مو هين كي قوم دليني أما هالماميني إلى أنتو أشيغو وعديو وحي إيجو كوغا في كران أما يكو هالمامي كران عدينتي باصون نقطي هذا صدح دي آيادات بوحا كسون نقطي كلمة البيان تبين يبين ومحي وعدين وأرين لعدي نبي جايو أصحابتي يا مؤمنين تو مركا يو عداتي إن يدك المشركين هي إن إلهي قدام بداف بريان وممنوع كو نبي إبراهيم سي به مركا يو عداتي إنه عدو إلهي يهي فره كقاضي والله بقى إلهينا قوم ما هلاقو ما عذابو ما دليو ما هالماميو إلى أنتو عديو حقه حقي مركي قادم وايين يو إلهي دليا وهالماميا وأصحاب النار كدقا صدح دي آية محاكو أروتي كلمة تبين إيو لبجيرو تبين إيو مرو بين وكلمة دي ومعنيه وعدين حيرك وحوكو قبنيا مركا وحي لغو عديو إيو حيركو قبنيا وحي هدونا الحير بجري دين بهدين انجري محا أمدا لغو عذابي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هو يدي أبيه أنت أنا الرسول كلا سود رنبا إياه دينته إياه وحو عدي نبي محمد أبيه هو يدي إياه وحو عدي إياه وحو عدي يؤيري وردين تابا جرته إياه وحو عدي يدي إلهي محوكو عذابي مركب يا إلهي محوكو عذابي والعذاب توحيت ماذا دتك ديدي حقا لو عدي لو بندقي دتك ديدي إيه كلا حدي إيه كجيستي إيو إلهي عذابا إيه هذا آياتها تبين آياتها عدينتا إلهي قرآن كل شيء يعني هذا آخرين هي دقيست إلهي وعري في سورة النور آيات بقري آيات سداد يتبن ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إلهي آياته سوني بردقية حقي سوني عدين إياه إلهي نوحو يهي العليم الحكيم سورة النساء آيات بقري لحية تضبات المحل هذا يبين الله لكم إلهي آياته سي حقي سي يوني عدين أن تضلوا سيدان أهل المامين ودحمان والله بكل شيء عليم بدعي قفك آياتها لو عدين واي لقما يابو إنو هالمامو إلا نوحي بلا تسي واي حقي بلا بري واي ديو هالمامي ما دام هو حير جرين وحي حرامينيا وحي حلالتمينيا وحي هدون جرين دي ددكي لما عذابك ولا ما حسابك إلهي محير يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم سورة البقرة لما بقريو سقالي تبن إلهي محكويري كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إيه هذا وحن كهل دنا وآيات البيان آياته إلهي كو عدينيو إنه حق أمده عدي كل هدو حقي أمده عدي كي قادم واي وأهل النار كي قاتين وأهل الجنة لكن وحي هدونا عدين إيه هذا دي أمد العذاب يا مجرتو أمد الحسابين كلام مجرتو حير شيء يا مجرتو وح عدينا يا مجرتو مع أمد الروح حسابين إيه هذا إلهي وحي في سورة البقرة آيات الله بقول يسقال طبعا كذلك يبين الله لكم إلهي وحاولني عدينا يا حقي يا دريقي توصنا لعلكم تتفكرون سيادو فكرتان ودبت بادان إيه هذا آيات كلنا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون سيادو قرادي ستان ودو عقلي ستان يو إلهي آياته سيني عدينا يا وحقي سنين بردقية آيات كله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سيدادوها نصتان ودو فعناتان يو إلهي آياته سنين عدينية إيه هذا آيات كله سورة المائدة سقالي سديت المحير إلهي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون سيداد إلهي ما دوقع لسان إيه هذا حقي مركز قرطان إلهي نعديو الحمد لله ناتر هذا حق إلهي والقبت بادا حق إلهي والقبت بادا مركز بدبادانا إن إلهي ما دوقع لسان هذا سورة البقرة آيات بقول يتضبي سديت المحير إلهي كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سيد إلهي وقد دور صدان إيه هذا يو إلهي حقي أعدي أمدس والحدود كان وحدود كي إلهي هدافنا حال كاسي هدافنا هدا دافتان على إلهي وان قدعس حال كاسي هو دوانين هدا دو دواتان إلهي وان عذابي والله عدينا يا وحي مركا وحي لعديو أو حيرار كي لسميو إيه إيمانا حسابتي مركا سا أمد الحسابين آيات كان إلهي سورة البقرة آيات لبا بقول يكوي لبات المحوكيري والله يدعو إلى الجنة إلهي دتك جنة أغيرا والمغفرة بإذنه يدن بداف كيسو إلهي دتك أغيرا ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون آياته سنو بندقا سيدي أحسان إلهي الحقيسة إيه أغرادستان إيه جنة أهلان إلهي دتك جنة غور موغيرا وادغورتو عدي دتك طريق جنة والطريق الجنة لوهلا طريق أنا عذاب الغلا استيلا لي أمدو هدي لأورون وايو أمد الحسابين هو أمدي marka xadiis kanaad keenaysan aayadaha ayo dhanbu beeneenaya aw beeneenaya
haddaan duuto xadiiska fahmi weyno oon sidiina u qaadno oon dusha ka qaadno oon ka boobno waxay ka dhigan tahay aayadahaayoo dhan iyuu beenaynaya xadiisku marka ma xadiiska rasuulka iyo aayadaha beenaynaya mise inigaa beenaynaya markasta inigaa muqafaliina oo wixii si qalloocsan u fahmaya war xaqa waa la barbaara waa la bartaa xaqa waa la bartaa sheergareeya nabiga hooyadii aabii dab bay ku jiraan sheergareeya war hooyadii aabaha yaa dab ku jiray sheergaree oo facebooka ka soo baxa yaa safiih marka alciqaab laa ya'ti bijariima ilaa bacda albayaan qofka dambi laguma qaban karo ilaa dambigaayo loo caddeeya horta war xeer baa jiraadeen waxaa ha samayn waxaa samey dariiqa ha dhaafin taana mar xeerarkaa hadduunan jirin qofka lama xisaabin karo dadkii khamriga cabbayay intaanan khamriga la xaaraantimeyn ma dembi bay leeyihiin ninka ku yidhaha dembi bay leeyihin waa nin waalan caqliba male kaas dembi male waayo weli lama xaaraantimeynine xeerkii xaaraanti weli lama soo dhaadhicin ila rasuulba lama soo dirine soo ma gar markaasi xeer baa jira horta wax kastaba xeer buu leeyahy oo ummadda loo caddaynay dowladdu xeerar bay leedahay ilaahay xeerar buu samaystay xeerarkaa marka ummadda loo caddeeyo kii diiday waa mutkabir waa ahla naar marka inaa loo dambi dhaaf weydiiyo oo ilaahay loo baryo uma banaanoba ilan wixii waa arkay waana diiday khalaas waa ikhtiyaarkiisi dambi dhaaf markaas somayso laakiin xeerarkii ninkii qaatay ee fahmay ee ilaahay maadda u celiyey waa ahliljanna soo maad gara haddaba xeerarkaasi yaa caddeynaya dee rasuul baa caddeynaya ilaahay rasuul buu soo diraya siduu xeerarkiisa u cadday rasuulka uu soo dirayo iyaa ummaddii u caddeynaya xaqa ilaahay eeg hadda markaa kii qaatay xaqaas ee midnimada ilaahay xajistay ee ilaahay caabuday waa badbaaday kii qaadan waayey sanabadiisi isagoo caabudaya ku dhintayna wuu halaagmay naartuu galay rusushu ilaahay soo diray yaa ummadda u caddeynaya xeerarka ilahay muxuu yidhi fi suurati nisa aayadda 156 rusulan mubashiriina wa munziriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja aayaddaa ii macneeya dadka kule naartay galeen nabi maxamed aabi iyo hooyadii aayaddan bal macneeye ilaahay muxuu yidhi rusul aan dirnay mubashiriina dadka fiicanna ku bishaaraynaya khayrka wa munziriina dadka xunna ka digaya naarta ilahay rususha aan dirnay muxuu yidhi ilahay ujeeddadaan u dirnay waa maxay lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja bacda rusul rusushaa kadib dadku sidaynan cudurdaar u yeelanba ilaahu maalaa wax noo caddeeyey sidaynan u oran dadku rusul baan u dirnay wax kasta u caddaynay dadku sidaynan cudurdaar u yeelan ilaahu ayaad noo soo dirtay maxaan anagu ka garanay goormaad wixii noo caddaysay sidaynan u oran iyuu ilaahay u soo diray rusushaa kadib cudurdaar jiri maayo رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أبيه هو يدي يا الله صادر جاهلو يا الله صادر أبيه هو يدي نبي محمد عدير إلا إن كيد علينا يا نبي انتونا النبي نقولنا وين انت نبي محمد عليه الصلاة والسلام أبيه وحود انت يسقوا على وشه هو يدي لح بلاد أما شم بلاد أما تضاو بلاد كجرة أيود انت عبد الله بليرة سو ما تقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام هو يدينا وحي دمتي يسقوا الحجرة أولي إنا يرى إيا دمتي هذا بحج جدا آيدا عذر دار كانوا إلهي كل شيء آيدا من ليه من سمره ما يلان كران هدتنا هذه إلهي بابك شكله إلهي يا بابك شكله مركزي كليهن ما يدينتي نبي إبراهيم وإني قاتاني هاد إمام النووي بايري إمام النووي يا إيري دينتي نبي إبراهيم إيه قاتان ويان واقزع بلد والنبي إبراهيم iyo nabi maxamed imsa qarni baa u dhaxay ma garan imsa qarni baa u dhaxay nabi maxamed iyo nabi ibraahim ya waa imsa sanado nabi isxaaq iyo nabi ciise waxa u dhaxay 2,000 sanado hadintu way dhimatay madin baa jirta wado nabi ciise iyo nabi maxamed waxa u dhaxay 600 sanado imaam an-nawawina wuxuu ku leeyahay diintii nabi ibraahim inay qaataan bay ahayd maxamed aabihi hooyadii waxan wax macquula waxas ma wax aqliga gala ma wax aayadan ay cadeyn karta may نبي عيسى أدم بي نبي محمد وحكاه الرئي نبي عيسى أنبياء بني إسرائيل وحاودم بي ونبي عيسى نبي عيسى إلى أنتو نبي محمد صوب حينا دينتي وي بابا دي حتى كتبتي إنجيل كي توراتي وابل بدليبا أو يهود بابدش سيدو أوران كرا إمام النووي قال شيء سيدو أوران كرا دين نبي إبراهيم وين قاتانه نبي إبراهيم أبو فوقي هي نبي عيسى دينتي صار ضماتي أو لبدلي أو وحال السجيب النبي إمادة أو أمتي كلا صار أو حقوا عدي يهودي يقالدي يا بس كودي لبتورات كي إنجيلك لبدلي ولا حرفي ويس كجرمية مركا محل وعد أبي نبي محمد هو يدي أبي وعي كلين دينتي إبراهيم بكتكين وحا ما وحا عقلي قلا يا ما وحا آيات وعدين كرتا إلهي عذر دار وحو إياه ليدتك وحا ليرا زمن الفترة بليرا نبي إلى نبي رسول إلى رسول أنت أدى حيسا دتك جاهل نمدي كبا باي وحا ليرا أهل الفترة فترة وحي كدي انقطاع من الرسل
ووقت محددة أي علمي كوب باباي دتكنا جاهلين يكون نقدين ووقت ديرو رسول إلى رسول أد حيو دتكو هالمامين ويا مركا عذر دار بلين دتك حالك كود أنت وقت قادتك أنت عذر دار بلين لكن رسول كدم به دتكي جاري عذر دار ملء إلا نحقي بالو عدينا يعني أرنتو إسكعب عندها يسخبنيا عندها يسخبنيا آيات وحي لها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل طيب آيات ذكر سورة النساء آيات دليل يلا باتن محل لها ولا إيه دين تمركز برين سورة القرآن كبروا قرآن كهرتا سفي عنه برو ودوح ويدي أبي دبك كجران يبلها أنت نقلين هرتا قرآن كبروا إنا أعطيناك الكوثر ما قريان عيالك اليرير جاهلين تا فيسبوك كبح حي كل هو النبي أبي هو يدي دد باي قالينه فافيا وشارقرية دد بدن بو وحو ترياي dad badan buu wax u tarayaa sheergareeya nabi maxamed hooyadii abihi baa dabka ku jiray war nabigiina ha dhibaateynino ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa dadka nabiga dhibaateeya naclad ilaahay baa ku sugan naclad ilaahay baa ku sugan walaa sheekhiina walaa cifriidkiina naclad ilaahay baa ku sugan dadka nabiga dhibaateeya adiga haddii lagu iraaho oo facebook laga baxo la iraaho hooyaday aabaha dabkay ku jiraan maad qolsi adu mise way ku dhibaateen de kan waa rasuul ilaahay way dhibaateenaysa dareenkaa dareemaysid uu dareemaya waa xabiib allah waa muxamed weeye maxaad u dareemi weyday markaas adigu dareenkii nabiga uu dareemayo iyo dhibtaad nabiga ku haysid maxaad u dareemi weyday markaad facebooka ka baxaysid oo leedahay nabiga hooyadii aabii dab bay ku jiraan war hooyadaa aabaha ka badbaadi dabkaadu nabi maxamed hooyadii aabii dabka inaynan ku jirin aayadaha kuu caddeynaya waanan kuu caddeynnaaye indhaha isqabin inu xaqa faham horta xaqa faham ilahay muxuu yidhi suurati nisa yuriidu allahu ilahay wuxuu nila doonaya liyubayina lakum inuu nii caddeeyo xaqa wayahdiyakum uu ni hanuuniyo sunana allaziina min qablikum sunnadii iyo xaqii ummadihii hore uu caddeeyo kale inuu inigana nigu hanuuniyo uu nii caddeeyo iyuu ilaahay raba soo maha wayahdiyakum sunana allaziina min qablikum wayatuuba calaykum wallahu caliimun xakiim inuuna nii toobad keeno markuu nii caddeeyo wixii eeg hadda uu xaqii nii bandhigo uu dariiqi iyo jidkii ficnaayay dadkii hore uu ku hanuuniye uu nigu hanuuniye markuu rabo ilaahay wuxuuna rabaa inaad ka tagtaan xumaanta uuna nii dambi dhaafo markaas waa goorma wuxuu ku dambi dhaafayo waa markuu kuu caddeeyo wixii ood ka toobad keentid hadduu wixii kuu caddeen waa ilaahay dee ma toobad keenaysid khamriga waad cabbiyo wax xaaraantimeynaya ma jirto eeg hadda 600 oo sanadood diintii baa baaba'day soo maaha kol hadday baaba'day dadkan imiday generationkan soo baxay dembigooga waa maxay iyagu dadkii rasuulka gaarina maaha dadkii kutubta iyo xaqa badilayna maaha waa dad dhashay oo dhashay zaman aljaahiliya muxuu ilaahay ku xisaabin marka muxuu ilaahay ku ciqaabin muxuu ilaahay u caddeeyey maxaa la su'aali dadkaas cudurdaar bay leeyihiin war ilaahay waa xaq weeyaan ilaahay waa xaq kuu cadaabayna xaq buu ku cadaaba kuu u naxariisanayo naxariistiisu ugu naxariistaayo xaq buu ugu naxariistaa إلهي وعادل ذاتك إنتو قالوا نار جهنم كمريد إلهي إلى إنتو عديو آياتها كو عديني آياتها كو عديني ديد آياتها سواكاي هديد مركا إلهي يريد الله ليبين لكم إنه يعدي حقيس ويهديكم أني هنونيو هدون هنوني وينو عدي ويا حقي دي ما هنوصلنا والله مع مركا السؤال معانا لو عدد عندك على مغفرين هذول طيب إلهي محوري سورة المائدة لقيست يا أهل الكتاب وحول هذا يا أهل الكتاب كل هذا وايو أهل الكتاب كواكوير دحلي كتبتي أنبياء دودا حد حلاني وين بدلين حد حلاني كوا ساقادن لها مسؤولية دين تسمع وذاك يعدين لها كوي علماء هاي كدح على نبي عيسى إيو نبي موسى كوي كدح على توراة كيو إنجيلك إن يدك عديان بين حق سمع ده كوا واحد ما دينه آياتي بسديك الأوروبي وين بدلين إياك مركز خلافي توراة كنا سيدا بولي إنجيل كنا سيدا بولي ده أمانة لماها علمي جوا أمانو إلهي هذا آيات سورة المائدة آيات شنية تبرح الله هذا يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إلهي وحنيجي من الرسول ني بندقة يا حق هذه نقول قرينا سان حق هذه نقول قرينا سان وضم ذاك قرينا سان حق هذه نقول بديشين ني صحية أو ني عدينية أو ني بندقة يعني ني صدرنا أهل الكتاب waxaan soo dhaadhicin ku soo dhaadhicin korkiisa kitaab nuura oo wax kasta bacadeynaya eeg qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin wa quraanka marka ummadii kala saaray xaqii sheegay soma de rasuulka la soo diray loo soo diray ahlul kitaabka sideenan cudurdaar u yeelan de abi hooyadii waxay dhinteen intuuna rasuul noqon cudurdaar ma leeyihiin mise male indhaha isqabo indhaha isqabo cudurdaar malo diintii ibraahim wayna yeeshaan ku leeyahay عندك على مغفرين العالم هذا أهل الكتاب كي كتب بدي ليبا وذاك نبي عيسى نبي موسى دحلي وحا لو صادر يحتى الرسول ولا ليه وريالهن نكابا نكلا صار حققات هذا الحق عيشها كان وحي كل أبي هو يدي دين إبراهيم وين يشاء مركا آياتها إلهي بيني طيب سورة النحل إلهي محيري سبحانه وتعالى ذاتك هو القرآن كوين الكتاب سيدي حديث فهمه
asliga diintu waa qur'aanka asliga shariicaddu waa qur'aanka xadiiskuna wuxuu macnaynayaa qur'aanka ninka qur'aanka si fiican u dhuuxi ee dhigan xadiisku macnaynaya waxba kama jira lama dhegeysto waxba kama jira ilaahay wuxuu yidhi suurati الnaxl liyubayina lahum alladii yakhtalifuuna fiih rasuulka ilaahay siduu ugu caddeeya waxay isku diidayeen ee ku murmayaan eeg liyubayina lahum alladii yakhtalifuuna fiihi waliyaclama aladiina kafaruu annahum kaadibiin eeg hadda rasuulka waxaan usoo dirnay siduu ugu caddeeyo uu u kala saaro dadkan waxay ku kala murmayaan ee isku diidayaan waa ayo waa gaaladii yahuudi soo ma marka ay gaaladu gartaan inay yihiin dad beenaalooyin oo been sheegay gaaladu waa kee waa kan loo caddeeyey ee diiday war nabi maxamed baa kuu caddeeyey qur'aankaa kuu caddeeyey may buu ku yidhi anu kitaabkaygaan ka aaminsanahay ninka iri beentaa uu sheegay iyo hala naar ku noqonaya gaalna uu noqonaya suuraddu waa suurat الnaxl aayadda 9 ilahay wuxuu yidhi liyubayina lahum alladii yakhtalifuuna fiih soo maha waliyaclama aladiina kafaruu siday u gartaan dadka gaaloobay inay yihiin maxay beenaalooyin dadka gaaloobay waa kuwa loo caddeeyey kan loo caddeynin muxuu gaal ku noqday waxbaba looma caddeyn wuxuu raacsan yahay dadkan mukhalifiinta zamankan jaahilkii diintu dhimatay iyuu nool yahay maxaa loo caddeeyey isaga ma rasuul buu arkay may ma kitaab baa loo sheegay may kutubtii waaba la bedelay ayib muxuu gaal ku noqday kaas zaman ilfatra baa la yidhaha waa zaman cudurdaar uu leeyahay dadkaasi cudurdaar bay ilahay ula tagayaan maalinta qiyaama hadhow ilaahay wuxuu ka yeelay isagaa ka yeeli laakiin adigu kuma xakumi kartid inay yihiin ahla naar iyo ahla janna been baad sheegtay ayib suurat الأنعام آية 155 ilahay muxuu yidhi وهذا كتاب وقرآنك هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه راع ومحل راعي وكتابك كتبت اللي بدلي كبح حق واكا وحكو عديها وقرآنك قرآنك راع بير الله داد كان قرآنك قارين محيا ليان عذر دار بلي عذر دار يلي هذا بقى آية سورة الأنعام آية بقول يشكل كتن إلى بقول يشني لحدا أفر سوالله إلهي وحيد وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كتابك راع وربي جينا كذا ورسلا واحد نقول سندل لون حريصين لعلكم ترحمون آية دكوا حتى بقول يشني لحدا محير إلهي أن تقولوا سيدا نور مالك قيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين يا من قبلنا إلهو كتبته وحيكون داعي لبض طائفة هرتين أنك كتاب نمسو داعي ولبض طائفة ويهود قالوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أنكم حنك قرن أنك ما هو كتابكم نقصوا داعي wuxuu ku soo dhaadhacay waa yahuudiyo gaaladii ilaahow sidaadna u oran maalinta qiyaame kitaab xaqaa nii soo dhaadhicine markaa cudurdaar ma jiro walaa ummadda maxamed walaa ummadda ciise isku sheegaya inay raacsan yihiin walaa ummadda muuse isku sheegaya inay raacsan yihin rumaysan yihiin cudurdaar ma jiro rasuulkii u dambeeyaa la soo diray kitaabkii u dambeeyaa lagu soo dhaadhiciyey xaqu uu ku cad yahay ninka kaa raaca waa badbaadi ninka kaa raaci waaya u halaagni soo ma aayaddu maxay leedahay an taquluu sidaadna u oran maalinta qiyaame cudurdaar sidaadna u doondoonin haddaba nabi maxamed hooyadii aabihii walaalow intuunan rasuul noqonba intuunan kitaab soo dhaadhicinba iyuu dhintay cudurdaar ma leeyahay mise male waa leeyahay indhaha isqabo dadku waxay dhinteen zaman alfatra zaman aljaahiliya iyay dhinteen yaa wax u caddeeyey laba kitaaboo la bedilay unbaa magaalada jiray soo ma tawraadkii injiilkii oo la bedilay oo la xarifay unbaa jiray ayib iyaa ummadda wax u caddeey cidna rasuul ba weli lama soo dirin haddaba cudurdaar bay leeyihin dadkaas ahla alfitra baa la yidhaha hay oran imaam annawi baa yidhi iyo imaam hebel baa yidhi war ilahay baa kula hadlaya ka bax sheekh fulaan baa yidhi sheekh callaan baa yidhi ka bax waxaa kula hadlaya waa ilahay horta hadalka ilahay baro oo dhuux sheekh fulaan baa yidhi sheekh callaan baa yidhi kitaabka rabbigood intay ka tageen iyay ku leeyihin sheekh baa yidhi oo sheekh baa yidhi sheekha caabud doorado روح اعبد الشيخ هذا الذي يقول لك ام الرسول ووالد الرسول في النار روح اعبده ردوا عبد هذا الحق دون سنات فهمت الواقع عيدوا يكون عدنيا طيب الهي محمد هذا سوره ابراهيم دقيقه حديث كان واديرانا يا صبر ذاتك الهي رسولك سجعلوا حديث كان واديرانا يا صبر سيد الحق وفهمتها سيد الحق وفهمتها وفها في السان حقه الهي وحيري سوره ابراهيم ايه افراد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم رسول ما نصدر الا وحن كصدرنا هي عرب كقوم كيس حتى عرب كيبو الهي شيء ومعي لغتي سالو صدر الهي رسولك وحقوق صدر رسولك استبا بلغه قومه عرب كوغا يوغو صدر سيد واخ كاستو عدي ما انت قيام عذر دارين وجري اله كان نو صدرتي انغو ما نفهم بو شيء لغتي سما فهمن iyo ilaahu anagu kitaab bamaanu arag iyo ilaahu anaga yaa wax noo cadeey anaga rasuul bamaanu arag sidaan loo oran maalinta qiyaama ilaahay rasuul buu soo diray eegada kutubna waa soo dhaadhiciyay rususha uu soo dirayna wuxuu ku soo diray qoomka luqadiisa iyo u soo diray sidoo xaq u cadeey wama arsalna min rasuulin illa bilisani qawmihi liyubayyin lahum waxaan ku jirnaa wali aayaat albayaanki xaqii sidii loo cadeeyay liyubayyin lahum markuu u cadeeyay inay qaataan iyo inay xumaadaan iyaga u taala eegada iyaga iyo u taala طيب هذا زمن الفترة waxay ka dhigan tahay ma fahamsan
فترة وحا ليرها رسول إلى رسول وقت أدحيي أي دكو هالمامين أي حق باباي يا فترة ليرها وانقطاع من رسل زمن انقطاع الرسل بين رسول ورسول انقطع الزمن انقطعت الرسالة حتى اختلط الحق بالباطل زمن الفترة ليرها زمن كاسي فترة حلكو كي مدي آيات بو كي مدي آيات عدينا سورة المائدة آيات سقالي يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أي على انقطاع من الرسل رسولك مركو رسالة دو قاضي ورسولك ودنبي دنتي كي كوحيجي انتو إيمانيو دادكو واي حمادين واي بابين طيب إلهي رسول بن صادري مركو وحي جي هوري قاي هدنا وحي كله يو رسول كانوا إلهي ني صادري ليش سببت وامحي وفرس آيات سورة المائدة آيات سقالي طبعا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا سيدانا نؤور محي ما جاءنا من بشير ولا نذير أنك رسول بنا مسوقاري سيدانا نؤور عذر دا سيدانا نؤيرا واني صوت الرسول فقد جاءكم بشير ونذير وني دواك ومحمد إلهي حال كاس محمود يديا إني بني إسرائيل كاسي عذر دار يشان معني تقيام عذر دار يشان ور عذر دارني مهري نادر نبي محمد بني صدرني فقد جاءكم رسول بشير ونذير والله على كل شيء قدير نبي محمد إياني صدرني إلهي بني إسرائيل بودي ديا يا أمة كلمة وعودي دينا عذر دار يشان هديت لكن كوي نبي محمد قال ويا عذر دار بالليهين هذا العقل لا هيدي إذا أنت عاقل قد عرفت الآيات بالإشارات إذا أنت مختل العقل أو مجنون نسأل الله أن يعافيك إلهي معير سورة الأنفال آيات لا بقول يو أفرت وفي رسالة آيات ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه سيدو هلاقمو كي هلاقمي واحد سيدو هلاقمو عن بينه كي هلاقمي سعد إيو واحد الله تسيئك هلاقمي ودي كي نولا إيمانك يشي أهل الجنة نقضينا محو كن نقضي وحلو عدي يكون نقضي وكن نولا وأهل الجنة كن نقضي ليهلك من هلك عن بينة وبيان ويحيى من حي عن بينة سيدا إلهي مورن وإير آياتها يودن انت كتغين إيه إنو كان يعني حديث الآحاد مسلم بائري رواه مسلم ورواه مسلم حديث هو صحيح وانكم معنا أن حديث كي ورطة آياتها فهم نبي محمد هو يدي أبيه دبكي كجران إساق هو يدي أبيه ويبدبارين إلهي معيري في سورة الإسراء يا حبيبي آيات دشان يطبع وما كنا معذبين مني أنه ضدتك عذابي وإلهي وحكوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى أنت نمضي قدرنا رسول وحو عدي هاي آيات المحكر إلهي وحيري وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى أنت رسول درنا نبي محمد هو يدي أبي يا الله دري سيدا لو عذابه يا الله دري آيات وحي كلها هي سورة الإسراء آيات دشان يطبع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنه مني ضدتك عذابي إلى أنت نقصد إنه الرسول وحو شيء وعدي زمن كان كجرنو زمن وحي وكل الوهال بما إسلام كيبا ميركس تلا الحربينية والنبي كيبا ميركس تلقوا أفلا قادينية مشايخ دينونا أنت ماشي أنا فلسطينية كورونيل نبي محمد أبيه هو يدي دب كي قالوا قال نبي كنت انتينو عندك على أمة هذه يا شباب العلي الحمد لله إلهي با ما هذا لإنونا يقدقين مع إنونا إيجين معلن إيدقا دينتا سلفينتا هو سلفينتا لا يراهو إنا أنا علمي قايدق إلهي با ما هذا إلهي با ما هذا سلفيين بيسكو بحيين إيجو سفليين إيه سلفيين يسكو بحيين نبي محمد هو يدي أبي دبت كريدين يا دتك نبي محمد حقيرة والعياذ بالله إيه وحبا كدقين وادتك كلية سلفيين بان وادتك زمن كانوا ويان سلفيين تصالحين تا كما هالديانو كوانا كهالديان ظالمين تا إيه وهابين تا إيه وهابين تا نبي محمد هو يدي أبي دبت كجل معناه دي أيضا معناه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن دايس قبو إلهي وحيري في سورة الأنعام ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون إلهي ما هكي قريدة أما قوم كهلاقي ظلمي كهلاقي كعذابي إياقوا غافلين ورسول بأرك وكتاب بدراسين وحق بلو عدين إلهي ما هكي عذابي قوم كما قريدة وحايو آية دوت انت كتغين إيا إنو كان يعني حديث مسلم بايري يا ولي بحديث إي معنيه سفهمي بقى معنيه سفهمي طيب هذا بدأ يسوع نبي إبراهيم أبيه دب كما قال هاوا قال أهل النار ما هاوية ما عدين قرآن كعدين سوسي ما شيخو قرآن كعدين هذا بقولتو أهل النار نقضي يا ما تقرنسا قولتو نبي إبراهيم أبيه أهل النار نقضي وقولتي نبي إبراهيم أبيه ما وحو دينتي نبي إبراهيم ونبي نقول ماي آية ده هيك سورة مريم ما قادنا آية ده كوي أفرتن دقيسو
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صوما آية النبي أفرتن إذ قال لأبيه أبيه بكير وآية ورسول إبراهيم أبيه بكير يا أبتي أبو لما تعبد ما حد عابد ما لا يسمع وحنا المغنى ولا يبصر وحنا أرد وسنبك ولا يغني عنك شيئا وانا حضرنا كوتري والنبي إبراهيم والنبي أبيه بحق وعدني آية قرآنك يعدل إيه هذا وحن كنت سيجارت النبي إبراهيم أبيه أهل النار نقضي ليس كما هالدون يا مال أنت لا فريسو ليس كما هالدون آية ده قرآن كفرس واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه أبيه بكير يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا آية صدح أفرتن يا أبتي إني قد جاءني من العلم أي من الوحي ما لم يأتيك نبي آية أبو أنيق إلهي وحي إبراي وحونا أديك وحدنا أدوك علمي الله هنيان أنكم أنت أقه وإلهي إبراي رسول بيقدر وأنيق أبو كوشيغي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني إراع أبو أهديك صراطا إيه سوي طريقة توصل أبو يقرع واد هنونسن واد فعنا أبو يراع يا أبتي الرسول بانه إلهي بان من تي وحيوي واحد نوجين بانوجه هي أبو يراع واد هنونسن وانا نكوكو فرح يراع آية أفر أفرتن يا أبتي أبو لا تعبد الشيطان شيطانك عبد سنبك وحيابا وعمل شيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطانك وحو ياكي رحمانك عاسي شيطانك وحو ياكي رحمانك عاسي إن عريست إلهي لقى فوقيه أبو شيطانك عابدين أني الراع بكين أيها يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا آية دشان يا أفرت دقيسو يا أخي دقيسو وحير يا أبتي وهذا الكي إبراهيم ولي واحد صعدة وواندوا إلى إبراهيم أبيك وانيني يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أبو وحن كبقى يا إنو عذاب كتابته وكتابته لك إله إلهي إنو كعذاب يان كبقى يا أود شيطان كصاحب لنا قتيت أبو يدقيسو أو يرع أو يفهم أو حقا كل جعلها يقول رع يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا آية دليل يا أفرت محير أبيه بجوابي قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إبراهيم ما إلهي ذي ذا كجيسة مات ما إلهي ذي ذا إيات كورجة دا إبراهيم لئن لم تنتهي هدات جوك سويدد هدات كجوك سويدد آلهة ذي ذا هذا وحكو شيء جيسي هدات كجوك سويدد وانكو جيدالين وانكو عقابي وهجرني مريا دان كان إداف جوابت أبيه وكا جوابت أبيه وكا إبراهيم محيري عليه السلام قال سلام عليك سلام أبو سأستغفر لك ربي قال كودن بداف ويدي إنه كان بي حفيظ إبراهيم أبيه سو ديدي أو إيري وياه حدد ما إلهي لا دوسنا وحكا شيكتي إبراهيم وانكو عقابي هذا بداف ويدي حلقا إداف وديدي هذا إبراهيم محيري إلهي بان بداف كوبداري إلهي إيان دن بداف كويدي سلام أبو يسكسر نين كاس مركو دنتي وأهل النار وايو آيات وعده آيات وعده حقي ما الوعدي يا أبتي يا أبتي أبو وديري دخل النار مركا إبراهيم أبيه وحا عد إنو قال نما كدنتي إنو أهل النار نقضي دم بدافنا إنا لو ويديو بما مركا وعدات أبينو يا عدو إلهي الداف بير بلايا كون دم بداف ويديسي أهل النار طيب نبي محمد أبيه موسو قاري ما قاري عذر دار دي ما ليه مسمله نبي محمد أبيه مكيري أبو يرا ما يكمل أبيه سندلي هذا كي دلي عبد الله إيو إسلامتي ده شيء آمنة بنت وهب ما يقاري النبي محمد والنبي محمد حقا موعدي وما يدي درسلو إبراهيم أبيه وديدي أبدا بل واحد انتاني سووا ير معي مركا مشركين كنا نقضين دي بل عدي مشركين معي كنا نقضين يا حبيب الشعب معي مشركين كنا نقضين حالك المشرك وإبراهيم أبيه وعده وقال له عدي ولا بري والله هوس قال سيكا ستالي روادي إداف بير إبراهيم نوحو كير عدي أبو إدافنا بروك قال حالك النبي محمد أبيه يا وحشي إن كي دلين يسقوا يربي كريته محل مركا إنه دبكو جيسين دي دبكا محل وريدين حديث كا شيء حديث با شيء أوله أبه يا أبها دبكي كوجرا حديثكو وصحيح هذا حديثكو صحيح هدوي هاي سيدا فهمتي هدوكو سي صحيح ما سيدا هدوكو فهمتي سي صحيح ما حديثكو هدو صحيح هاي آياتها القرآن كما بينين كردي لكن هذه سي صحيح وفهمتي
إنك آياتها وذا أقرينا ودن وحن كعديني إلهي إنه أمتنا عذابين قفنا عذابين إلهي أنت وحو عدي صوما هذا بقى آيات دي عذاب الشيء سبب تكون صور عديها معنينه سيدا نوهنو حديث كان صحيحة محوجة ده آيات وحي شيء سورة التوبة بقول يسدح يا فرتان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه صمّا هذا بقى آيات سورة التوبة وما كان للنبي نبي أمبنان أي ما ينبغي للنبي وما أهان رسول أي مؤمنين بقى إن يدن بداف ويديان ذاك مشركين تا الشرك كقول انتي إيه هذا ولو كانوا أولي قربى هدينا يهيد ذات يقعدوا أبو ياشود هو ياشود أدري ياشود فامي يقعدون هذه وما بنا آيات وحي كسر دعد عدي سيدا أقص أحسن سبب النزول كيك وحوي وأبا طالب ملك دمني أبا طالب والنبي قادرك وكي نبي كوري عليه الصلاة والسلام ننكاس نبي جيبو كوري وعلي بن أبي طالب أبيه قعنتي سكو كرسل أبو أولدقما أبو يولدقما نبي إبراهيم أبا طالب نبي محمد أبو أولدقما ها وأبيه يقول ولا لك أبيه ولا ليهين ونا كوري وإنا كيس أبا طالب كان نبي محمد وسوغاري ونا قرنا يحق إنه يهي نبي محمد لكن أودي الأصح في سبب نزول هذه الآية نزلت على أبي طالب حينما جاءته الوفاة سيدا أقص أحسن وطا سببت آية دلنا كسر دعد عليه ومركو دمني أبا طالب والنبي قلنا دول شوقي وكورني أبو أدر لا إله إلا الله ده أنا قام عليك يا محجكون نقريو جنتك وجيني أدر لا إله إلا الله إيده أنت هذا نولد وادي دي ما أنت وادي سكرات يا أدر لا إله إلا الله إيده وادي ودي مركو دي وسيدا كل انتي نبي عليه الصلاة والسلام محاور لا أستغفرن لك ما لم نهى عنه وحيري أدر وهذه اسكت دي دينتي إلهي باندم بداف كويدين ما داموا إلهي إيقام ممنوعين هيك ما دام لي يقولون هود دم بدافين أنا إلهي باندم بداف كويدين حال كاسو بلابي نبيكو إنو دم بداف أديركي كويدين إلى إنت يكون صور دار داري آيادا كله مبنانو نبيكو إنو قدام بداف ويديستو ذاتك مشركين معنى قصة داري نبي محمد أديركي مركو دمانيي ودنتي كدب آيادا لما سو دادعين ماي ولي حكم ما سو دادعين نبي محمد مركاسو أورونا يا حديث هو صحيح إلهي باندم بداف كويدين ما دام أنكر يومانتا إلهي باندم بداف كويدين آيادا سوحي سو دادعي مدينة يكو سو دادعي أبا طالبنا وحكو دنتي ومكة وقتي قادر نبي محمد أديركي بودم بداف ويديني أيو ويديني إلهي بويديني إلى أنت سو دادعي آيادا سورة التوبة سورة التوبة وسورة دي قدام بيه قرآن كسو دادعي وسورة دكالياتي بسم الله أنا لهين سمعها وسورة الشيخ براءة وحن كان ينتهي بريء بان كان هيهدد إلهي رسولك سي مؤمنين تو هدد بريء وحكيهين أي فرها كقالين حرير كقال دبا وآخر تبعي صور دادعي إلهي بو بريء دم بداف إلى وقت مدينة لجاري أي سورة التوبة صور دادعي أي آيات دانا خاصة كسور دادعي نبي الله كجوك سو هدبا ولا أديك ولا مؤمنين تاني ما بنانو إن قدام بداف ويدي ستان ويدي سان إلهي دك مشركين تقال كل قال نماذا كل انتي هديهن دك نيدو أدير كان هنقضي دم بداف كيسه انت يا وقت النبي عليه الصلاة والسلام قدام بداف أديركي ما وحبو أتري ها وحبو أتري يا عديني حديث صحيح عديني حديث صحيح يا عديني حديث قال وحوي النبي عليه الصلاة والسلام وحال قرويي ايه هذا في صحيح مسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة ننك أقو عذاب فضط ماني تقيام وأيو رجل يحزى له نعلين من نار نين لو حيري دونو كبو نارا كب نارا يا لو حيري دونو ننك أقو عذاب ير ماني تقيام رجل يحزى له نعلين من نار يغلي منهما دماغه لبدا كبوري ناتا إيه لو حيري يمسك حديث كفورسا قل وانك أقو عذاب ير محيرهن علماء إمام مسلم محيري وحيري عند إمام مسلم أن الرجل هو أبو طالب ننكاس أبا طالب والنبي أديركي لكن دم بداف كي نبي محمد كرامة دي نبي محمد إياه دبكي لو فدودية وأيا وأديركي واحد دبك لو فدودية إن كستو قاني مدي عدي كل انتي وحقي أركي ورسولكي أركي وديدي وقاني مدي كل انتي وشركي كل انتي دبو قلي هذا نبي محمد دم بداف كو إلهي أويدي يدرادي دبكي بلو خفيفية إكراما لحبيب الله محمد واكا محمد كالو شيء واكا أبها لو شيء
ninku markuu nabiga u yimid uu ka yidhi xadiiskaad sheegasaan ninku markuu nabiga u yimid uu ka yidhi ayna abi aabbahay aaway uu ka yidhi nabigu abuuka aabbaha dab buu ku jira markaasuu yidhi ina abi wa abaaka fi nnaar aabbahay iyo aabbahaba dab bay ku jiraan waxay ka dhigan tahay waa adeerkii ee aabbihii maaha ilan kan koriyey adeerkii iyo aabbuu u noqonaya waa haddaad luqada carabiga garanaysaan de luqada carabiga haddaad fahmaysaan aabba waxaa la yidhahaa adeerka aabbaha awowga awowgiisa aabbuu ku yahay haddaad luqada carabiga fahmaysaan marka ina abi aabbaha iyo aabbaha dab bay ku jiraan waxay ka dhigan tahay aabbaha iyo adeerkay weeyaan ilan aabbuu igu toosan yahay aniga wuu koriyey wuu koriyey 8 jir ilaa intuu weynaanayo khadiijo guursanayo gacantii wuxuu ku jiray adeerkii abaa aalib isagaa koriyey ayib aabbihii haddaba xadiiska sheegaya ina abi wa abaaka fi nnaar waa adeerkii waa wax cad waa wax cad laba qof ayaa dabka ka galay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam mid la yidhaho abulahab iyo mid la yidhaho abaa aalib abulahab waa kii la xarbinayba nebi maxamed waa kay ku soo dhaadhacday tabbat yadaa abi lahabin wa tab naartuu gal ya taa dambi dhaaf ba looma weydiin waa maxay xarbi dagaal buuba ku kacay kaas wuxuu ohan jiray war ninkan anaa adeer waa anaa niga garanaya waa beenaanay ha raacina buu ohan jiray intuu daba socdo nebi maxamed waa abulahab tabbat yadaa abi lahabin wa tab maa aghnaa canhu maalahu wamaa kasab ayaa kusoo dhacday iyo abaa aalib kan koriyey nebiga jeclaaya xanaan ku koriyey eeg hadda uu nebigu adeerkii uu aabbihii u arkay ninkaasi abaa aalib nebiga lamu xarbin bal nebigu ka difaaci jiray inkastuunan raacin qurayshtu way iman jirto waxay ohan jireen war abaa aalib oo adaan kaaga xishoonnaa inanka naga qabo war walaa inanka walaalka ii daayo ohan jiray waryaa nagala taga riwaayadda maxamed been ma sheegee maxamed ii daayo ohan jiray subxaan allah haddana wuxuu ku dhintay gaalnimo xaq u arkay iyuu diiday soo maha dabkuu galay aayaddu waxay ku soo dhaadhacday markaasi wamaa kaana linabiy walaziina macahu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu uli qurba waxay ku soo dhaadhacday waa abaa aalib eeg hadda imka waxaan garanay aayadda iyo xadiiska saxiixa ee sheegaya ina abii wa abaaka fi nnaar halkan aabbihii maaha cabdullah wuxuu sheegaye waa aabbihiisan koriyey ee walaalka aabbihii la dhashay ee la idhaaho abaa aalib markuu dhimanayey xadiiska saxiixa nebigiina waa soo gaaray xaqiina waa diiday gaalnimadiibuu ku dhintay nebiguna dembi dhaaf buu weydiistay dembi dhaafkii daraaddii iyaa dabkii loo khafiifiyey xadiis kaloo saxiixa sheegaya waxaa loo xiraya laba kaboo naarta jahannama iyaa loo xiraya kabahaasi daraaddii iyo maskaxdiisu ay ku karasaa uu cadaabta isagaa ugu cadaab fudud eeg hadda waana aabbihii buu u tirsan yahay lianna waa koriyey aabbihiina waa la dhashay xadiiska saxiixa ina abii wa abaaka fi nnaar waa abaa aalib hadalkuu cadiya haddaba hooyadu waa teedii ilan xadiis saxiixa sheegaya hooyaday baan dembi dhaaf u weydiiyey ilaahay waa ii diiday laakiin inaan ziyaarto waa ii yeelay ilaahay qabrigayga inaan booqdona waa ii yeelay dembi dhaafkiina waa ii diiday xadiisku waa saxiix annagu axaadiista saxiixa ma diidano laakiin waxaan keenanaa fahamka saxiixa ee qur'aanka la socda iyaan keenana intaan qaadnoon dadka kuma dhirbaaxano oo ummadda ma fidnaynane sidii xaqa ahaa yaa dadka xaqa loo sheegaya ha haddaba hooyadii halkan ma aamina bintu wahab ma hooyadiisan dhashayba hadday tahay hooyadiisan dhashay hadday noqoto hooyadiisan dhashay xadiisku wuxuu beenaynayaa bay ka dhigan tahay aayadahan caddeeno oo dhan inuunan ilaahay xaq yahay uu xaq dadka ku cadaabayo uu wax kasta markuu dadka u caddeeyo xisaabinayo intuunan rasuul dirin ummadda inuunan cadaabin waxaayo aayadooda iyuu beenaynayaa bay ka dhigan tahay xadiisku ma noqon kartona xadiiska rasuulka saxiixa xadiiska saxiixa ee rasuulka laga rawiyey waa xadiiska macnihiisuna saxiix yahay qur'aankana uu la socdo xadiisku wuxuu macnaya waa qur'aanka ma khilaafo qur'aanka laakiin markaad muqafal tahay oo caqligaagu shaqaynin ood wahaabi tahay iyaad ummadda ka dhaadhicinta nebi maxamed hooyadii aamina iyo aabbihii cabdullah iyaa naar ka galay adoo indhaha iska haya waxaayo aayadoodo qur'aanka kuu sheegay uu ilahay kugu caddeynay waa masiibo waa masiibo war xaqaa la jeclaada adeer sakiilak min sheekh fulaan u sheekh callaan waxaas ka baxa xaqa baro xaqa laguma garto ragga ee horta xaqaa la gartaa markaasaad raggayga garan keebaa sheekha waxaad garan markaad garatid horta xaqa hadda waleesh qusacbalaad nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa 5 hooyo yaa wali ma maqashay hadalka 5 hooyo lahaa hooyo dhashay 2 hooyo korisay iyo 2 naaska muujisay 5 bay islaanta ku korisa hooyay kula suganta hooyo iyay kugu toosanta islaanta ku korisa ee xanaan kugu korisa hooyay yani kugu toosan tahay islaanta naaska caanaha ku muujisa waa hooyada min arradaaca islaanta ku dhashayna waa hooyada 5 hooyuu leeyahay ha hooyadii dhashay horta waxaa la yidhahaa aamina bintu wahab radia allahu canha ilahay ha ka raali noqdo ilaahay ha ka raali noqdo aamina bintu wahab iyo cabdullah ibnu cabdilmutalib ilahay ha ka raali noqdo waayo iyagaa sabab noqday inay dhalaan khayra khalqi illah khayra khalqi illah inay dhalaan iyagaa sabab noqday waa dadka ugu khayr badan waalidka ugu khayr badan waa waalidkii dhalay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ha kan moodayaa inuu waalidkiisu badbaaday ee waalidka nebiga naarta geenayow dhegeyso
آمنة بنت وهب waxay dhimatay زمن الفترة waan sheegnay زمن الفترة rasuul ay gaadhay ma jirto kitaab ay aragtay ma jirto xaq cad ma jirin wax cad ma jirin dadku jaahilnimay ku noolaayeen iyada iyo cabdulmuطalib waxay dhinteen زمن الفترة iyo dhinteen زمن الفترة dadka dhintaan allah naga garanaya leeyahay culamada intoo badanna waxay yiraahdeen ahl الفترة waxaa loo rajaynayaa intoo badan inuu ilaahay u naxariisto waayo cudur bay leeyihiin xaq gaari ma jirto kitaab ku soo dhaadhacay arkeen ma jirto rasuul loo soo diray ma jirto marka ilaahay waa caadil oo aayadihii kuma soo noqonno waan caddeynay taas haddaba xadiiska waxaan caddeynaa imka innii astaazantu rabbii an akfira liummi an astakfira liummi inaan dambi dhaaf hooyaday u weydiisto way diiday ilaahay hooyadaas waa tii ma aamina been baad sheegtay xataa hadduu jiro xadiis sheegaya inuu aamina yahay wallahu aladii rafaca asamaa ninka u horreeya diidaya waa aniga waa ani lianno aamina waxay dhimatay zaman alfatra aayadaha qur'aanka intaan dhaafo xadiiska aamina sheegayaan uma qaadanayo hadduu jirona qaadan maayo laakiin waxaan ogaaday islaantan uu nebigu sheegayo inay hooyadii tahay uu ilaahay u diiday dambi dhaafka waa kollayba islaan shirki ku dhimatay oo la arkay oo shirkigii ku dhimatay oo diiday inay raacdo taas weeyaani ma noqon karto aamina aamina markay dhimatay imse jir bay ahayd maad garan 20 jir bay ahayd nebi maxamed hooyadii nebi maxamed waxay dhashay iyadoo 15 jir aw 14 jir iyay dhashay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam subxaan allah waxay dhimatay iyadoo 20 jira aw 19 jira aw 21 jira culamadu waa isku khilaafeen islaan 20 jir ku dhimatay oo kitaabba soo gaaray oo rasuulba arag oo zaman alfatra iyo aljaahiliinta ku nool muxuu ilaahay ka cadaadi muxuu ilaahay ka cadaadi inankeegiiba uu ka qaadee aakhirana manaartuu geen yah oo wuxuu ka xaaraantimeenba inankeyga inuu arko inay aragto inankeyga aakhirana naartuu geen hada waxaas waa caqligii wahaabiyiinta weya aamina bintu wahab kow waxay dhimatay zaman alfatra zaman alcudur taa lama cadaabi karo aayadaha caddeeyey hooyadiisa labaad waxaa la yidhaha ummu ayman baraka bintu saclaba baa la yidhaha islaantii addoonta u ahayd aabihii cabdullah wuxuu ku dhintay 25 jir nebi maxamed hooyadii markuu guursaday sanad iyo 2 sannadood unbuu la noolaa uu dhoofay madiinuu tagay madiinuu ku dhintay 25 jir buu ahaa ma soo gaarin nebi maxamed eeg hadda wuxuu dhintayna nebi maxamedoo 6 bilood caloosha hooyadii ku jira maxaa lagu cadaabi maxaa lagu xisaabin kan la cadaabay waa abaa aalib waa kii gaari waa kii koriyey ayib ummu aymantan addoontii waxay ahayd cabdullah nebiga aabihi waxaa la yidhahaa baraka bintu saclaba ayaa la yidhahaa xaadinati nebi taarikhdeeda ma aqrideen islaantaas waxay ka mid ahayd dadkii haajiray ilaa xabasho u haajiray ee meel kastaba rasuulka u raacay ee jihaadka galay ayay ka mid ahayd way jecleed nebi maxamedna iyada u jeclaa way korisay xanaan bay ku korisay nebigu wuxuu odhan jirayba ummu ayman islaantan baraka la yidhaha ummu ayman waa inankeygii ummu ayman ummii buu odhan jiray bacda ummi hooyaday kadib iyada hooyoy ah sidaasuu odhan jiray way islaantay culamadu way isku raacay aslamat ummu ayman awal alislaam waxay ahayd dadkii u horreeyay islaamay iyo ka mid ahayd waxay dhimatay yah tawafat bacda nebi nebigu markuu dhintay kadib iyay dhimatay laakiin islaamnimay ku dhimatay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray innahaa ummii bacda ummii soo ma culamadu waxay isku khilaafeen iskuma khilaafin islaamnimadeedii culamadu waxay isku khilaafeen sanadday dhimatay ibnu kasiir wuxuu yidhi tawafat bacda annabi ب5 ashhur 5 bilood kadib iyay dhimatay nebigu markuu mootay kadib 5 bilood iyay dhimatay waqiila culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen 6 ashhur 6 bilood kadib waqiila inahaa baqiyat waxay noolaatay baa layidhi qaarkoodna waxay yidhahdeen waxay noolaatay bacda qatli cumar ibnu khataab eeg hadda sidaasay yidhahdeen marka waktigay dhimatay waxay ka dhigan tahay nebiga kadib bay dhimatay waktigay dhimatay muhim maaha laakiin waxaa muhima inay islaamnimo iyo iimaan ku dhimatay iyaa ku xiga ta waxaa ku xiga xaliima asacdiya islaanta la yidhaho xaliima sacdiya xaliima asacdiya islaan la yidhaha ku xigta waa islaantii saddexaad ee hooyo waa nebi maxamed xaliima sacdiya waa bani sacd waa islaantii nebi maxamed geysay baadiyaha bani sacd geysay 4 sannadood korisay naaskayga muujisay xaliima sacdiya islaantaasi ma islaantay nacam waa islaantay layskuma diidin islaamnimadeedii waxayna dhimatay bacda alcaami الثaamin min alhijra waxay dhimatay sanadda 8aad hijradda nebiga alayhi salaatu wasalaam hijrad markuu haajiray kadib 8 sannadood kadib iyo dhimatay waxaana lagu aasay fi lmadiina almunawara fi lbaqiic meesha baqiica la yidhahday saxaabada lagu aaso yaa lagu aasay ta afaraad waa ayo waa faatima bintu asad ibnu haashim ibnu cabdumanaaf waa tii afar faatima bintu asad waa ayo maad garanaysaan waa cali ibnu abi aalib hooyadii waa islaantii nebi maxamed koysay waa abaa aalib
إسلامتي سويا نبي أديركي كيد أنت ديد إسلامي ماذا إلهي عذابي وإلهي كيري نبي محمد هودا بدافن نكاسي نبي محمد كوري النبي محمد أديركيا إلا إراه أبا طالب إسلامتي سا فاطمة بنت أسد وإسلامتي نبي محمد كويس وعلي ابن أبي طالب هو يدي لا صعب وإسلامتي أفراد إسلامتي أنا وإسلامتي ليس بدي إسلامي مدينة توفت في السنة الرابعة للهجرة وعمرها ما يقارب 60 عاما واحد دمتي سند أفراد هجرة سند هجرة سند أفراد إيه دمتي وحين دمتي إيه ولا حدا شراء إسلام تامر كلمة النبي حب بوي عليه الصلاة والسلام حب بوي حتى قميص كيسة يوكو آسف وكو كفيني قميص كي بركة سنة رسولك يا لقو آسف فاطمة بنت أسد إيه هذا قبر يجيبوا صوت على النبي عليه الصلاة والسلام قعنتي سوكو آسف عمر بن الخطاب باير يا رسول الله ولي ما أنا أركي أديكو إسلام سيدا وقوي يا وحيري عمر إن هذه المرأة إسلامتا كانت أمي بعد أمي التي ولدتني هو يدي إذا إدى الشيء كدب يلا هو يهد وحنان يقول كريس وحيري علي أبي طالب مركو نقوكعو أي هذا يلا أورنجرت ورياه محمد هلا دين عيالك هذا يلا دفاع جرت ويسوي cuntada marka la dhigo booran jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam Umar buu ga sheekeynaya cuntada marka la dhigo nasiibka ugu fiican iyo hilibka ugu fiican aniga isin jirtay buu nabiga sheegay kaleey salaatu wasalaam xanaanka iyo naxariista ay ku korisay islaamka xoog buu weeyay marka nabiga kaleey salaatu wasalaam ahl aljanna weeyaa maxaa ka dhigay ahl aljanna islaamnimo ay ku dhimatay nabigu qamiiskiisa iyo ku koriyay iyo ku kafinay kafan uga dhigay waa islaanti afar طيب hadaba islaantan uu nabigu xadiiska saxiixa ku sheegay uu ilaahay dambi dhaaf u weydiistay hooyadii oo loo diiday waati aamina maaha تيدا شماه أم بركة ماها إسلامتي كوريسي ماها حليمة سعدية ماها إسلامتي هدنا كوريسي الناس كموجيسي ماها فاطمة بنت أسد ماها إسلامتي هدنا أديركي وقبو أي كوريسي حنان كو كوريسي إسلامتا وقميص كيسكو آسي ماها وأيها الدبا وإسلام شنات أيها ليرها سويبية بنت سويبية باليرها الأسلامية وإسلامتي أدون توهد أبي لهب وإسلام حبشية وأدون وهد أيوه أبي لهب إسلام تاسي وإسلامته الرئيسي النبي موجسي آمنة كذب حليمة السعدية دان شيغني النبي باديها جيسي انتينا إيمان والنبي قادم با إسلامتي الناس كي موجسي النبي محبد وصوبية والإسكا قرانية مرضعة الرسول لما إسلام با النبي موجسي والناس كسيسي حليمة السعدية إيوه صوبية إيوه دي هويدي سو ما قران هويدي مركا لقا قاد هويدي وطيدة شيء مركا لقا قاد الله با موجسي النبي والناس كسيسي صوبية الأسلامية إسلامتا إيوه حليمة السعدية صوبية على إسلامية وحي هاد أدون وهاد نبي أديركي أبي لهب كيلو أوروني كوصار على تبت يدا أبي لهب إسلام تاسي نبي موجسي إسلام تا كموجسنا وحي كوتاي هويو من الرضاعة ولا شريعة وشيء هذا بقى إسلام تن ما إسلام تي مسمى إسلامي علماء وحيران ما إسلامي وحدينا يا إنا إسلام تي مدته هذا بقى نبي جميع قادين مسمى قارين وين قادين نبي والنبي جو راشين بودير شري أو أقل كي خديجة من جرتي والنبي جو وحي كي سوي قادين لكن وحدينا يا إنا إسلام ما كل متي هذا يراتي مجرته بل علماء أنتوا بدن وحي راهن قاني ما كلمات ويدي دين إسلام إيه قال ابن منده اختلف في إسلامها إمام ابن منده لله وحيري والسكو خلافي إسلام ماذا صوبية بل قال أبو نعيم وحيري نكاسي لا أعلم أحدا أثبت إسلامها علماء الأمة الإسلام كي تاريخ ده يا علماء واحد جلبة ما أرق من عدين إسلام ماذا صوبية الأسلامية مجد طيب واحد جرى كتاب ليرى طبقات السعد كتاب تاريخ جرى كتاب كان كاس وحو عدينا إمام كاس وحو ليه يدل على أنها لم تسلم وحو عدينا إننا إسلامين بس ولا إنا كيغا ولا إيرو ما إسلامي هذا هو إسلامتن إيو حديثكو عدينا يا بكريات حديثكو هدو هو يشيغيو لعذابيو والنبي محمد ليري هو برين دم بداف وإسلامتن النبي قادي إدي دي إلى إسلامته وأنا هو يدي من الرضاعة تن وهو يدي ناس كيسي ناس كيغي يكو كل سنة محمد وعلى يري مدوشان عشاء يموجين جرت النبي محمد انتينا الإيمان حليمة إينا قادين محمد أي هذا لأنه عرفتوا عادة وحول لهين إن عيالك قادان باديها كوكورياني هل كانوا الناس موجيو هل كان يكون لف أكادان اللغة العربية نصفتي عن قول كتاب أي هذا مركا أنتنا الحليمة إيمان إسلام تموجي سي النبي محمد هو يدي كذب إسلام تموجي سي وصوبية الأسلامية سويبة وطن سويبة الأسلامية بلها ما إسلام الإسلام أبي لهب يا أدون واحد هذا بقى نبي محمد عليه الصلاة والسلام ماشي من قبرك وكل زيارنا هو يدي والله فصحي لكن أنا لو فصحين إنه دم بلا فويديو وحا حقيقة وعقلي قالوا ونقلي قلنا يا لي ومعي وإسلام دي إسلامي ماذا إسلام كل مات نبي محمد ما تقرن سن ولا عليها يسووا قالات كل حنول قال دي يا كتري وريا محمد حداد رسول حقتها يا دوك إلهي على مدها نقول صور داعي ودقحان عذابه سمدها نقول صور داعي هن عذابه بالله هذا الحق
han ku garanno inaad xaq tahay ilaahay aayad han ugu tuso inaad xaq tahay cadaab naara dab rooba han ugu soo dhaadhay markay sidaa iraan ilaahay muxuu ku soo dhaadhiciyay nabi maxamed wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim aayadda ilaahay ma ahan kii iyaga cadaabay iyagoo sidaa leh ilaahay ma ahan kii iyaga cadaabay adoo nabi allah ku dhex jira rasuulku ciyaar ma nabi maxamed waa naxariis buuxda dadka sidaa leh adoo nabi allah ku dhex jira anigu ma cadaabay bir ilahay war yaa wahaabiyoy wahaabiyoy nabigiina ka xishooda nabigiina ka xishooda oo ummadda ha fidneenina ciyaalow diintiina barta sheekh baa iriyo callaan baa idinka baxa war xaqa barta xaqa barta oo tafsiirta dhigta oo xaqa doondoona sheekhuna ha ku joogsanine sheekh badan u tag weydiiya xaqa doondoona laakiin waxbaa nii sheegay nabi maxamed aabbihii iyo hooyadii kuwan dhalay haddaad leedihin dab bay galeen kuwiinaa dabka galay taa ogaada rasuulka ilaahay ha dhaawicina laa tu'suu rasuul allah rasuulka ha dhibaatanina haddaad sheegaysaan kiina sheega hooyaday iyo aabbahay yaa dabka galay dhahoo facebooka ka baxa laakiin hadal aadna garanayn macnihiisa xadiis aadna fahmayn xaqiisa iyo aayado aadna garanayn ha ka hadli xaqa waa la gartaa ee ragga laguma garto xaqa garo raggeygii baad garan intaasaan hadalka ku joojinaya xaquna waa intaa dadkan walaalahayna waxaa leeyahay xaqa faafiya war ilaahay rasuulkiisa ninka jeclow xaqa faafi rasuulkii ilaahay hooyadii iyo aabbihii baad sheegtee xataa ninkii gaaloobay rasuulka gaaray adeerkii ahaayee aabbaha u dhigmayey cadaabtaa looga khafiifiyey intuu nabi maxamed koriyey iyo intuu nabi maxamed u weydiistay isaga dambi dhaaf marka ina abii wa abaaka fi naar aabbihiisan dhalay maahe waa aabbihiisan koriyey abaa taalib la ilaahay diiday xaqa isagoo arkay hooyadiisan la cadaabay ee dambi dhaafka loo diiday aamina bintu wahabta dhashay maahe waa suwaybiyat alaslamiya islaanta nebigan muujisay korisay ee haddana waktigiisa gaadhay ee islaami weyday dhimatay ee culamadu caddeen waayeen islaamnimadeedii uu taariikhu caddeen waayey islaamnimadeedii macnaa gaannimay ku dhimatay haddeed inaa loo dambi dhaafo ma bannaano waayo gaannimadeedii baa cad laakiin islaantii nebi maxamed dhashay iyo aabbihii gaannimadaad ku sheegaysiin waa gaannimo aad inagu ku jirtaan ee maaha laga sheegi karo nebi maxamed aabbihi hooyadii subxaanaka allahuma wabixamdika subxaanaka allahumma wabixamdik marka soomaali christian t v iyo wahaabiyada iyo jaahiliintan yaryar ee facebooka ka baxaya u dira hadalka waa haddaad ilahay rasuulkiisa jeceshaha intaasaan hadalka ku joojinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu